marka intaan dhammaan waxyaabahan qoraxda ku wareegsanayo waxaa loo yaqaanaa meerayaal. Okay, qoraxda iyada horta si gooni ah way isku dul wareegtaa oo quraanka lagu sheego shamsu tajri mustaqbalin lahaa wareeg leedahay oo ka soo jeeda qaabka saacada u socoto macnaheedu si ka soo horjeeda lidka saacada wareegaas. Marka maanta waxaa ka hadlaynaa sidoo kale waxaa si fiican u qaada dhigeena meerayaasha qoraxda. Waxyaabaha qoraxda ku wareegsado waxay ka kooban yihiin 8 meere. 8 waxyaabood oo loo yaqaan meerayaal ama 8 meere. Meerayaashu waxay kala yihiin Mercury, Venus, Earth. Sidoo kale waxaa kamid ah meerayaasha midka loo yaqaano Mars, Jupiter, Saturn iyo Uranus iyo Neptune. Uranus iyo Neptune intaas waxaa waaye 8 meere ee qoraxda. Waxayna u kala horeeyaan qaabka ay qoraxda ugu dhow yihiin. Meeraha qoraxda ugu dhow haddaad fiiriso sawirkan waxaa waaye waa Mercury. Waxaa ku xigo Venus. Waxaa ku xigo dhulka ama Earth. Earth waxaa laga wadaa dhul la wadayaa. Markaan hadda soo dhaweyno waa dhulkii aan ku noolahay waa Earth. Magaca English waaye dhul la wadaa dhul. Okay. 8daas meere ayuu ku kooban yahay waxyaabaha ama meerayaasha 8daas ay ku kooban yihiin. Marka maanta waxaa isku dayaynaa inaan ka hadalno si kooban afarta ugu horeyso oo qoraxda ugu dhow. Saa u jeedid afartaas maxay kala yihiin Mercury, Venus, dhulkii iyo Mars. Afartaas mid kastana wuxuu ku wareegsadaa qoraxda asagoo wareegiisa raacaya. Had fiir tusaale ahaan dhulka oo kaleeto inuu hal wareeg oo dhameystiran qoraxda ku soo wareego waxay ku qaadanayaan 365 maalin ama hal sano. Wareegiisana saas oo raaca dhulka saas qoraxda ugu soo wareegsadaa. Waa ka wareega dhulka. Sidoo kale Mercury maadaama qoraxda u dhow yahay wareegiisa waxay ku qaadanayaan 88 maalmood. Asna wareegaas oo raaca ama gabaabintiisa saa ugu jeedinbo. Venus asna waxay ku qaadanayaan 225 maalmood inuu wareeg dhameystiran ku sameeyo qoraxda. Afarta meere ayaan ka hadlaynaa. Sidoo kale meeraha loo yaqaano Mars maadaama uu ka fog yahay qoraxda wareegiisana waa fogaana inuu hal wareeg oo dhameystiran ku sameeyo qoraxda waxay ku qaadanayaan hal sano iyo 322 maalmood ay ku qaadanaysaa. Okay, Mercury iyo Venus aan ka hadlaynaa marka. Mercury iyo Venus waxaa loo yaqaanaa meerayaasha aan dayaxyada lahayn. Dhammaan meerayaashan kale dayaxyo way leeyihiin marka laga reebo Mercury iyo Venus. Labadooda ma lahan wax dayax ah. Dayax ama bil labadooda ma lahan. Haddii aan soo dhaweyno hareerahoodana aan fiirino wax dayax oo ka muuqanayo ama ku wareegsanayo ma lahan. Soo jeedin. Mercury waxaa la dhahaa waa meeraha ugu dhow qoraxda waana meeraha ugu yar haddii loo fiiriyo cabir ahaan meerayaasha. Waxaa ku xigo meerahan loo yaqaano Venus. Venus asna waa meeraha labaad ee qoraxdu ugu dhow meerayaasha qoraxda ku wareegsada marka loo fiiriyo. Dhawaanshaha laga hadlayo waa kana Mercury asaa ku xigo kadib dhulka waa meeraha saddexaad. Venus waa meeraha labaad ee qoraxda ugu dhow sidoo kale waa mid ka mid ah meerayaasha leh iftiin xoog leh. Waxaan lagu magacaabaa meerahan waxaa loo yaqaanaa mataanka dhulka ama dhulka inuu mataan leeyahay. Sababtuna waa waxay isku ekaanshaha dhulka aad isku eg yihiin meeraha dhulka. Marka loo eego xagga xajmiga oo xajmi ahaan waa iska daba dhow yihiin asiga iyo dhulka. Mataanka dhulkan loo yaqaanaa. Cufka culayska iyo culays jiidka iyo qaab dhismeedkiisa. Waxaan xusid midan in asna Venus uusan lahayn wax dayax ah. Haddaba taas qalbiga ku hay labada meere Venus iyo Mercury labadooda ma lahan wax dayax ah ma lahan. Meeraha saddexaad waxaa waaye waa dhulkii. Waxaa loo yaqaanaa Earth ama dhul. Waa meeraha saddexaad ee ugu dhow qoraxda.
keliya waxaa kaga dhow Mercury iyo Venus kaga dhow. Waa meelaha saddexda qoraxda ugu dhow. Dhulka waa meeraha keliya ee nolol ay ka jirto. Fogaanta uu u jiro qoraxdana waxaa lagu qiyaasaa in uu gaarayo 150 milyan. Fogaanta uu u jiro dhulka iyo qoraxda ee isku jiraan meeqa waaye? 150 milyan oo kiiloomitir. 150 milyan oo kiiloomitir waaye fogaanta u jiro dhulka. Saan hore usoo sheegnay, dhulka waa meeraha keliya ee ay nolol ka muuqato oo dadku ay ku nool yihiin. Sababtuna maxaa waaye? Sababtoo ah fogaantiisa munaasibka ah oo qoraxda ka fog yahay. Qoraxdana aad uguma fogo dhulka. Haddaad fiirisid dhulku qoraxda aad uguma fogo sida meerayaasha oo kaleeto. Haddana hoosta uguma jiro oo saaid uguma dhow sida Mercury iyo Venus oo kale. Maadaama fogaantaas munaasibka ah waxay keentay dhulka in lagu noolaan karo. Sababta kaleetana waxaa waaye waxa uu leeyahay biyo iyo hawo muhiim u ah nolosha noolayaasha ku nool dhulka oogadiisa. Labada sabab awgood dhulku waa meeraha keliya ee lagu noolaan karo weeye. Soo jeedin dhulka qaybtaan dhulka mid ah hadda maalin ay u tahay. Qaybtaan kale la habeen ay u tahay. Hada anaga saacadu noo saaran waa 5 saac iyo bar. 5 saac iyo bar dhulka Afrika wuxuu sheegay inay tahay mugdi. Soo jeedin oo kale dayax ayaanu joogo Soomaaliya tan meeshaan mugdi oo leeyahay. Okay, dhulkan wuxuu leeyahay marka hal dayax oo leeyahay. Dayaxna waa kana wuxuu ku wareegsadaa asna dhulka ayuu ku wareegsadaa. Soo jeedin mid dayax saan u soo wareegsanaa dhulka. Inuu hal wareego dhameystiran ku sameeyo dayax dhulka waxay ku qaadanay 27 maalin. Cashar kaleeto ayaa ugu hadlaynaa oo dayax ah. Laakiin hadda dhulku wuxuu leeyahay hal dayax oo ah dayaxa ama bishaan. Sina wuxuu ku wareegsanaa dayaxa sina wuxuu ku wareegsanaa dhulku ku wareegsanaa. Halkaas dayax uu leeyahay dhulka. Okay, meeraha dhulkan waa ka hadalay. Waa meeraha saddexaad ee qoraxda ugu dhow. Astaamihiisa hadii la weydiiyo. Sidoo kale qoraxda wuxuu u jiraa 150 milyan. Sidoo kale meeraha waa meeraha keliya ee nolol ka jirto sababtoo ah fogaantiisa munaasibka ah. Qoraxda aad uguma fogo aad uguma dhowo. Sidoo kaleeto sababta ay nolol ugu jirto waxaa waaye wuxuu leeyahay biyo iyo hawo ku filan. Meeraha afraad ee aan ka hadlayno waxaa waaye Mars. Mars aw. Meeraha afraad ee aan ka hadlayno waa Mars. Mars nagi. Kana waa Mars. Mars waa meeraha afraad ee qoraxda ugu fog. Qoraxda ninkan ama meeraha Mars wuxuu u jiraa 228 milyan oo kiiloomitir ayuu ka fog yahay. Dhulku wuxuu ka fog yahay 150 laakiin Mars qoraxda wuxuu ka fog yahay 228 milyan oo kiiloomitir ayuu u jiraa fogaanta qoraxda. Waana meeraha afraad ee ugu dhow qoraxda. Meerahan waxaa lagu gartaa midabkiisa casaanka ah. Soo jeedin meerahan maxaa kaaga muuqanayo? Casaana kaaga muuqanayo isna casaan. Casaankaas maxaa keenaya? Sababta maxaa waaye? Sababtan waxaa waaye meerahan waxaa ku badan macdanta birta ah oo dhagaxyadiisa ay ku jirtaa macdanta birta ah. Sidoo kale meerahan Mars ah waxa uu leeyahay 2 dayax ayuu leeyahay. Mars haddaan soo dhaweyno. Mars haddii aan soo dhaweyno. Mars wuxuu leeyahay 2 dayax. Haddana soo dhawey Mars. Meeraha afraad waaye. 2 dayax ayuu leeyahay oo asigu ku wareegsanayso. 2daas dayax maxaa loo kala yaqaanaa? Waa kala angejiso 2da dayax. Mid waxa la dhahaa Phobos iyo Deimos. Mars wuxuu leeyahay 2 dayax saana u wareegsanayaan. Wareeg dhameystiran. Dayaxan kalena Deimos la saas ugu soo wareegsanaa. Labadooda waa 2 dayax waxaan iska leh meeraha Mars. Meeraha dhulku wuxuu leeyahay hal dayax laakiin Mars wuxuu leeyahay 2 dayax oo loo kala yaqaano Phobos iyo Deimos. Kuwaas dayaxyadaas saa u jeedin dayaxyada kan dhulka uu leeyahay la mid maaha waa ka duwan yihiin. Hadaa fiirino dayax dhulka wuxuu ahaa mid cad oo ah laakiin kuwaan midna waxa waaye madow waaye oo dhagax camal. Kan kaleetana waxa waaye jaalo camal waaye labadoodaba. Kana Deimos la kana
phobos aa ladahaa. Waa muuqaalkan marka waxaa uga hadlaynay afartaas meere iyo bac cadceedeedka waxa la dhahayo.